muuqaalkan waxaan kaga hadalnay Nabi Idriis alayhi salaam nabigii ugu horeeyay binaadamka barasada wax loo qoro iyo sidoo kale markuu Nabi Idriis alayhi salaam geeriyooday sida ku bilaabantay binaadamkuna markii ugu horeysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu shariik yeelo oo asnaamta caabudaan binaadamkuna ugu shirkigaas ku jira ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo diraa nabi maanta muuqaalkan kaga hadlayno waana Nabi Nuux alayhi salaam muuqaalkan hore Nabi Idriis kaga hadlayno waxa jirtay su'aalahan idin weydiiyay oo ahayd Nabi Idriis alayhi salaam nabiga ku xigi doona su'aashaasna dhowr qof ay ka jawaabay waxa ugu horeeyay laakiin wiilkan magaciisa la raado Idriis Silver Nabi Nuux alayhi salaam wuxuu ahaa rasuulkii ugu horeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo diro Idriis alayhi salaam wuxuu ugu beegan yahay awgiisa faraad meelahaas soo kale wuxuu kamid ahaa Nabi Nuux alayhi salaam rasuulshii waaweyned ee ulul azmi lagu magacaabi jiray Nabi Mahamed Ciisa Muusa Ibrahim iyo Nuux ulul azmi ay lagu magacaaba Nabi Nuux alayhi salaamna qowmkiisa wuxuu imaadaa iyagoo dhamaantood shirka ku jira oo asnaam caabudaya keligii ayay tawxiidka ku sugnaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala keligii bari jiray dhamaan wixii dadka uu la noolaayo dhanba asnaam ay caabudi jireen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu risaalada u dhiibay Nabi Nuux soo diray isagoo dadiisu 50 sano jirto sidoo kale 950 sano ayuu dhex wareegay qowmkiisa oo la Ilaahay ka baqa markii qowmkiisa la halaagay kadibna wuxuu noolaa 350 sano kale isku geyn wuxuu noolaa 1350 sano Nabi Nuux alayhi salaam Nabi Nuux alayhi salaam dacwadiisa ayuu bilaabay qowmkiisa wuxuu ugu yeeray Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisa caabudaan kana imaadana asnaamtan iyo qashinkan ay caabudayaan laakiin way diideen Nabi Nuux alayhi salaam Ilaahay subhanahu wa ta'ala la hadlay wuxuu leeyahay Ilaahay qowmkayga daraar yahayn baanu yeeray laakiin yeeditaankaygaasi uma kordhin inay iga yaacaan mooyo oo dhagaa farayga gashtaan qowmka Nabi Nuux mar walba Nabi Nuux alayhi salaam uu yeedho wadada soo marudi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yeedho iyana Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya caabudaan way ka yaaci jireen waxaanu yaqaaneen nin waalan Nabi Nuuxna dacwadiisi si kor ah iyo si hoosaba si calan ah iyo si sir ah qaab walba ugu yeedhay dadkiisi laakiin way diideen waxaana Nabi Nuux alayhi salaam rumeeyay ugu yaraan 10 qof ugu badnaana 80 qof kaliya 950 sano qowmkiisa dhex socdayba 80 qof kaliya ayaa rumeeyay Nabi Nuux wuxuu qowmkiisa u yeedhay iyaguna ay diidaan ugu dambeyntii waxay bilaabanayaan Nuuxow murankaaga ayaa batay markaana tus cadaabtan Ilaahay ee aad naga cabsinayso boqorkii magaalada ayaa xataa soo ragay in Nuux aan cidna la hadli karin oo la iska dhaga tiro ay kuna adkaadaan caabudida asnaamtoodii wad suwaac yaquus yaquuq nasr shantan muuqaalkan hore ee Nabi Idriis alayhi salaam kaga hadlinay aynu ku soo sheegnay shantan nooc ahaan shan nin oo wanaagsan marka hore waxaana lahayn majaalis cilmiga dadka ku baraan markii geeriyoodeen kadib waxa bilaabantay inuu shaytaanka waswaasiyo ardaydoodii oo ku raado macallimiintiina ama dadkii wanaagsan saad u xustaan dhagax dhiga meeshii ka tageen dhagaxii ayana sameeyay dhalinyartii kadib muddo markay ka soo wareegto waxa bilaabantay in dhagaxaantii laftarkoodii la caabudo oo la iska iloobo qisada bilowgeedii oo dhagaxaantii la caabudo lagana barakaysto marka dadkana shirkiga ay sidii ugu sii jireen Nabi Nuux alayhi salaamna haweeney maalin buu yeedhi jiray wuuna taagnaa oo qowmkayga Ilaahay ka xabsado shirkiga idinma wacna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya caabuda taas waxay ilaa maalmaha kamid ah boqorkii magaalada u yeedho oo ku dhahay Nuuxow waana ogolaan doona dadka magaalada joogana ku dhageystaan laakiin hal mid samee dadkan fuqarada kula socda dadka muuminiinta isaga aaminay ayuu ka wada dadkan fuqarada kula socda iska eri marka hore maadaama anagu dad sharaf lanahay oo ciz iyo karaamo leh dadka lama farsan karno marka dadkan iska eri ayuu ku dhahay Nabi Nuux alayhi salaam wuxuu ugu jawaabay boqorkii qowmkayga horta marka hore wax lacag idin weydiisan maayo ajarkayga Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ayuu yaalaa ومركا لبدا dadkan dadan eriyana ma ahan sababtoo dad muuminiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyay sida idinku Ilaahay ula kulmi doontaan ay iyaguna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ula kulmi doonaan oo qomkayga xageen ka mar doona Ilaahay hadii aan dadkan muuminiinta ay Ilaahay rumeeyaan eriyo idin mali khaznadihi Ilaahay ayaan hayaa ama mustaqbalka ay wax koogahay mana jirto wax jeebkayga oo idin ballan qaaday wax walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ay sugnaadeen qomkiisa markaa arkeen in Nabi Nuux alayhi salaam ka go'aantay oo aanu rabin inuu dadkan iska eriyo maadaama iyagu isku sheegeen dad sharaf laanahay oo dad lacag labaanahay dadka fuqarada naga aksar lama farsan karna meel laakiin Nabi wuxuu ka diiday marka arkeen inay ka go'an tahay waxa ku dhahay Nuux hadaba murankaaga ayaa batay in tus waxaas la hayso قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نوح عليه السلام marka wuxuu jawaabay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa idin keenin doona cadaabtiisa marka uu soo doono ani gacanteeda wax kuma jiraan xaaladdu iyadoo xagaas maraysa ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyooda Nabi Nuux alayhi salaam soo sheegaya in aanay jirin cid dambe isaga rumayn doonta intii hore rumaysay mooyee macna intii hore ku raacday mooy cid dambe qowmkan kaama soo raaci doonto
haddana waxay kale ay soo degay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay Nabi Nuux in uu dhinacaas buurta tago samaystana doon laakiin Nabi Nuux alayhi salaam ma garanaysa doon loo sameeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa tawjiihiyay si qoryaa loo jarjaro doonta laftarkeedana loo xidhxidho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay inta gaalada ay ku soo raaci weyday waxaad naxariis weydiin doontaa ma jirto halowgoodi ayaa gaadhay Nabi Nuux alayhi salaam markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay in qoomkiisa cidna ka soo raaci doonin hal mar ayuu dacwadiisa ka joojiyay waxaan tagay dhinacaas buurta si uu sameystay doontiisa waxa ahayd doon 3 dabaqa sidoo kale korkan way ka dadneed maadaama qoomkan kor iyo hoosba biyo laga keeni doono Nabi Nuux qoomkiisa waxa moodaa inay tabeen ninkii qurunta taagnaa ay u yeeri jiray waxaana bilaabeen inay ka daba tagaan buurtii uu doonta ku sameeyay kadib intii uu tagan ay ku dhaadaan Nuux soo digay maaha nabi aha goorma dajar noqotay macnaha ku jeesjeeseen markaas Nabi Nuux alayhi salaam nagu jawaabayay sida nagu jeesjeesaysan aan anakuna idin ku jeesjeesina waan arki doontaan cid cadaab kulul u timaado Nabi Nuux alayhi salaam doontii uu dhameeyay kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amray inuu gurigiisa iska tago ilaa uu calaamada ka arkay mooye kadib markuu calaamadahaas arko uu soo dhaqsado dhinaca doonta Nabi Nuux alayhi salaam xaafadiisa ayuu iska tagay maalmaha kamid ah ayaanu calaamadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay ayuu arkay kadib ayuu sida ugu dhaqsaa badan doontii tagay markaa wuxuu arkay arin aad u cajiib ah dhacday markaas xayawaanadii dunida saarnaa oo dhan sida u dhamaayeen labiyo dhadiga ayaa saf soo galay say doonto fuulan xayawaanadan koodii halista ah wax cuni jiray koodii aan waxba cuni jirna halista ah dhamaantood soo garab taagnaayeen saf ayna ku jireen ma jirin xayawaan kala dhibaateynay saf ayuu soo galeen doonta inay fuulan Nabi Nuux alayhi salaam doonta ay yimaadeen isagii muuminiintii kale xaasaskiisana laba ay ahaayeen midiyadu Galay ahayd way halaagsantay mid labaadna muslimada ay ahayd soo kale 4 ciyaal ayuu lahaa 3 kamid uu weetay mid Kancaan la dhado ayaa laakiin diiday Nabi Nuux alayhi salaam markuu uu doonta fuulay wiilkiisa Kancaan uu yeedho wuxuu ku yiri wiilkeegiyo doonta nala soo fuul gaaladaasna iskaga soo har laakiin Kancaankan mid madax adag ayuu ahaa waxaan uu jawaabay biyahan yar ama roobka yar soo daay buuraya ka fuuli doona kadib markuu roobku qaadana ayrman iska soo daadegi doono laakiin mawjad ayaa watamid oo gabigiisa qaaday waxaana bilaabantay halaagii qowmkii Nuux Ilaahay subxaanahu wa ta'aala samada wuxuu amray in waxa biyaha soo dhanba soo deyso dhulkana uu biyihiisa soo daayo kadib kor iyo hoosba biyaha kaga yimid qowmkii Nuux way qarqmeen dunida korkeeda waxay saarnaa dhammaan sida u dhamaayeen guryihii dhartii wixii makhluuq saarnaa dunida dhanba way dhinteen marka laga soo reebo xoogaa gaar doonta saaran mooyee wixii kale oo dhanba way baabeen doonta intii saarneed ee bini'aadam iyo xayawaan baahayd Ilaahay subxaanahu wa ta'aala badbaadiyay muddo 6 bilood ay mawjadaha biyaha soo dhex socdeen dhulkana wax qalalan ma jirin markii dambe Ilaahay subxaanahu wa ta'aala way bariyay Nabi Nuux alayhi salaam iyo muuminiintii inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala doonta ka dejiyo oo dhul dejiyo markaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amray samada inay roobabkeeda joojiso dhulkana inuu biyihiisa iska liqo Nabi Nuux alayhi salaam markaa wuxuu bilaabay inuu xamaam diro ama shimbir diro si ay bal u soo eegto dhul qalalan inuu jiro xamaamkii ayaa soo noqotay iyadoo zeytuun wadata soo kale lugaheedana deeqa ku leh markaas ay ogaaday Nabi Nuux alayhi salaam inay dhulka meel kamid biyihii ka gudhan Nabi Nuux alayhi salaam iyo muuminiintii la socday waxay ogaadeen in biyihii dhulka ka sii dhamaanayaan markaa way farxeen waxaana ku soo degeen buur la yiraahdo Araaraat oo koonfurta Turkiga dhacda sida qisada lagu sheego buurtaas ayna nolol cusub ka dul bilaabeen Nabi Nuux dadka la socday dhamaantood waxa ahayn dad madhalaysa ama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uma qorin in wax dhalan marka laga reebo Nabi Nuux kaliya mooye dunidana ma saarneen bini'aadam kale marka laga reebo xoogaaga doonta ku badbaadi mooye saadarta Nabi Nuux alayhi salaam waxa la raada aabihi labaad bini'aadamka ama aadamkii labaad maadaama 3 ciyaal uu dhalay bini'aadamka kalena ka sii farcamaan waxaanu dhalay 3 wiil oo la kala raado Sam Ham Yafit 3 wiil ayaa aniga iyo adiga bini'aadamka waxa dhamaan ku noolba ay ka farcameen mar kale reer bin Israel iyo carabtu waxay ka farcameen Sam xagay Afrikaanku ka farcameen Ham soo kale Shiinayskii Turkida iyo Yurubiyaanku waxay ka farcameen Yafit Nabi Nuux alayhi salaam uu geeriyooda 350 sano kadib halaagii qowmkiisii waxaan isku geyn noolaa 350 sano Nabi Nuux alayhi salaam dabadii binaadamku way farcamaan waana bataan haddana mar kale ay shirkigu bilowday in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo shariik yeelo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi kale soo diri doona nabigaas qisadiisa waa muuqaalkana dambe su'aasha muuqaalkuna waxay tahay nabiga magaciisa la iska rabaa commentigoisa ku soo Inshalah qofkii ka jawaabo su'aashaas muuqaalka dambe in magaciisa ku sheegi doona wasalaamu calaykum